الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. المركب كواد إلهي بقى محل له مرلبات المدن وزير كحيين صحافته وحمانتا إلهي مهدية ومالنتي وجودا بيسي امتحان كي شهادي جاها فصل كأفراد تكسي السرع كاس أو ساعات كبعدي لما أنتي سوق بجواب بدونها دول هيدمو وحنا كوادي يكون بشارين إياه لقى صوب بلاو سجالة طبعا كبيرش إلا ما أنت حبيراته إن الدير هردين أنتوا امتحانات كالسعودية سيدا درتيد وحنا مكان كل شوي نهاي ساعات كبعدي إنه صوب الحرارة وحي أها مرودي تشح قبل ذي كلنا كو وجود دو إلا عاوي سوق الدوران ساتاسوا بشاردي كواد إلهي بانا محله إنه سفي عني نوجود ماضي وحن تعالى إن توس وجهه امتحانكي أرضي دواد سات كير ورهيسان كوفرية وحبات شري واتي فصحينا أي جرين وحجا وراه هي أرضي ده أو كصابسن إني ما دوين كقار أن لورد ما يسترين يو سيدي بلنتو هايد إني بقول كيف تضباطن أن فنفوركو كايمن وحوي تا هرت وحنا عدينا أرضي ده أنا وشيجينا لبعض الرمود حفيز امتحانات كديبو إيجي دونا وحنا نقادي هذا وكل صورنا هاي بقول كيف تضباطن إنه امتحان كوكا كوبنا هسا هاتي ما دام أرضي دي فيلد كتشوكتي أي عباشة بدن ككينين وحق عنك يجو يهي إن وقتك الصحتان كديب لو إيجو أرنت قاعد بالو إيجي دونا تنكره إن ما تقانا واحد سروان رنتود واحد وقبر خاتك عيا عتوبية دقار إن أنا أرضي الله ما يسترين أو فسحوا كسو قاري وحي امتحانك كجتيرة مركانو إجنو وحول بوح اللجوء هذا واسحتانك مركانو إجنو كود بورك وحي يجي دونا مركا ولا صحيو وانو كور جري دونا وحي عداتو إني وحى أرضي الشيء يعني حقيقتها wax alla wax awoodayada aanu kala xari doonaa ma jiro waxbaan ka qabanaynaa sida ay doonayaan been wax u dhici doonaan insha Allah biidilaahi kariim markaanu taabano taasi waa ta ardayda waxa ardayda laga rabaa iyagana qaarkood siday wax u soo adres gareynayeen waa laga fiicay ardayda waxaan u sheegayaa iyo waalidkaba horta waxaad ogaataan imtixaanaadku ma aha cadaawad isla waliba rabeen saxaab بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay baa mahadle alxamdulillaah rabbil caalamiin isu keenay inagoo caafimaad qabno nabad ku sugan oo iimaankii qabna ciday intaas ka maqantayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu soo celiyo inta kadib maanta waxa farxad u ah wasaaradda waxbarashada xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland oo dhan in imtixaankii laga qaadayay 3,000 oo arday uu ku dhamaaday si guul ah oo ardayda la eegaya aqoontoodii oo si fiican ay u dhacday oo 3,000 arday iyo 4,000 oo hawlwadeen oo hawsha ka shaqeynayay iyo 7,000 ee wasaaradda waxbarashada oo xafiiska imtixaanaadku lagu hogaaminayaba ay si guula ku dhamaatay waayo marka la isu geeyo guud ahaan ardayda iyo hawlwadeenka ka shaqeynayay 40,000 kor bay u dhaafayeen marka operationka ama hawlgalka ay ku jireen 40,000 oo qof iyo waalidiintii iyo Soomaaliland oo dhamido wuxuu ahaa hawl culus laakiin si guula bay inoogu dhamaatay xafiiska imtixaanaadku in loogu hogaaminay ilaahay baana mahad koowaadna mahad labaad waxaanu mahadnaqaynaa ciidanka booliska Soomaaliland ama guud ahaan ciidamada Soomaaliland oo boolisku ugu badnaa laakiin ciidamadu meel ka duwan ka qayb qaateen ciidanka boolisku maanta wuxuu mutaystay runtii wasaaradda waxbarashada oo ka mutaystay in la siiyo abaalmarin dahab oo taariikhda baal dahab laga qoro waayo ciidan waxay ahaayeen si professional oo aqoon oo xirfad ku dhaahanta u shaqeynaya heegana ujeedadooda
si wanaagsan u dabagelaya dulqaadna ku daraya haddana cidda dembi gasha ee ay arkeen tallaabada ku habboon ka qaadaya waxay ku guulaysteen ciidanka booliisku marka operationka howlgalka intaa leeg marka la samaynayo qof iyo laba qaloocan laga waayi maayo marka waxay ku guulaysteen inay soo qabtaan 9 qof oo ku xadgudbay sharciga waxbarashada iyo hanaanka imtixaanka de kole faahfaahinta markay ku habboonaataa la sheegi doonaa laakiin ciidanka booliisku network waxay ahaayeen isku xidhan ilaa tuulo ilaa magaalada caasimadda isku xidhan marka ciidanka booliisku siday ay ugu raad joogeen inay habeenba meel ugu ay habeenba geed u hoos taagayeen waxay ku guulaysteen inay 9 qof soo qabtaan waxaana lagu qaadi doonaa sharciga khuseeya iyo nidaamka garsoorka ay ku awoodda laba loo gudbin doonaa waxaa jira iyaguna kooxo intay WhatsApp group samaysteen ama ay samaysteen baraha bulshada mid ka mid ah ku wada xidhiidhayay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كاس حفيقة هي سؤال في عم بنويديي وكل لو بحرين إعلان كي أنا ما أنت عن هالكن مركلة عن محاك رأي أنو كعلينو قلب كاي قلب كلابا وحنكو رأينا يا قلب ككلا وقت جي بشي صدحات waxaynu dugsiyada fasaxnay muddo 2 bilooda fasaxaasi oo aynu soo horumarinay fasaxii caadiga ahaa ee 2 bilood ahaa ee awalba ay iskuulada gali jireen sababta loo soo horumariyana waxay ahayd xaalad caafimaad oo runtii waddanka taagnayd oo xanuunkii COVID-19 oo waqtigaasi aad u soo laba kaclay waddankeena ama jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigaasi wareegta la soo saaray ka hadlaysa in فصحي أول كل عشرة بيشة تضباط يبيشة لحد كل عشرة إن لسه هرمريي وقت كدكسية دبلو سجل دونا أي نقطة دونتا بيشة تضباط كودهان والدين تسمال لان يا أرضيدا يا شعبوينه هنا بقى وحن مركل كبر رجلنا وقت كيسكولة دي لقصة نقطة يا لقصة نقطة فصحي وقت قاسي أو ركتة أي شيء جسي هنا تهاي بيشة تضباط سد حديدة بيشة تضباط saddexdeeda wax iska bedelay marka mar jirto waqtigii maxaan ku raayay iskuulka galitaankiisa marka inay u diyaar garoobaan iskuuladii la diyaariyo ay weeyaan fariinta koobaad ee halkan aan ka diraynaa qodobka kale maxaan ku raayay ku saabsan direyska runtii wasaaradda waxbarashada iyo saynisku muddo sanad ah ayay talo urursi iyo cilmi baadhis ay ku jirtay ku taxalluqa arrinta direyska 2020kii ayaa maxaan ku raayay aan soo bilownay guddi markaa uu wasiirku u xil saaray hawshaasi dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee ay la xidhiidho arrintaasi direysku hadday tahay maxaan ku raayay dhakhaatiirta caafimaadka